VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. sidii warka aad ku maqliseen ra-iisul wasaarihii hore ee Israel Ariel Sharon oo muddo 8 sanadood la miir daboolnaa xanuunka dhiig furanka maskaxda ayaa geeriyooday. Fiidiyowga Israel oo soo xiganaya eelka Masar Sharon ayaa sheegay inuu geeriyooday maanta oo Sabti ah isagoo ay da'diisu ahayd 85 jir. Masar Sharon ayaa ku dhintay cusbitaal ku yaala meel ku dhow magaalada Tel Aviv. wariyaha VOA uga soo warrama magaalada Jerusalem Luis Ramirez ayaa warbixintan inoo hayo kaga hadlayo arinta ama taariikhda uu ka tagay Masar Sharon. Cabdicaziz Xuseen Cusmaan oo studio fadhiya ayaa inoo soo koobay. Ariel Sharon waxa uu ahaa dagaalyahan isku bedelay siyaasi weyn oo dalka Israel jago weyn ka soo qabtay. Markii uu ahaa askari waxa lagu yaqiinay geesinimo uu muujiyay xilliyadii dagaalka kadib aasaaskii waddanka Israel. waxaa xusid mudan guushii uu kasoo hoyay dagaalkii Yom Kippur ee 1973 markaasoo dhabarjabin uu ku sameeyay ciidamadii Masar una horseeday ciidamada Israel inay galaan gacanka Suez. dhinaca kalena waxay dad badan ay u arkaan inuu ahaa nin naxariis daran oo axmaq ahaa. sanadkii 1982 waxa uu hogaamiyay weerar lagu qaaday dalka Lubnaan kaasoo horseeday in maleeshiya reer Lubnaan ay xasuuqaan boqolaal reer Falastiin kuwaasoo ku noolaa xeryaha qaxootiga ee Sabra iyo Shatila oo ku yaala magaalada Beirut. Dennis Ross oo horey uu qaabilsanaa Mareykanka wadahadaladii bariga dhexe ayaa sheegaya in askarinimadu ay wax badan ka bedeshay nolosha Mr. Sharon. He certainly came to believe that the only way peace would be possible would be for Israeli strength to be respected. Ross wuxuu sheegay in Ariel Sharon uu aaminsanaa sida kaliya ee nabad waarta lagu heli karo inay tahay in la xushmeeyo quwadda militari ee Israel. siyaasi ahaan Mr. Ariel Sharon wuxuu ahaa nin siyaasadiisu ay muran dhaliso. mar xilal wasiiro ka soo qabtay xukuumadda kala duwan oo Israel wuxuu u ololeyn jiray in Yuhuuddu ay degto dhammaan dhulka Falastiiniyiinta oo dhan. Shukri Abid oo ah aqoonyahan reer Falastiin ayaa sheegay in tallaabadani ay ka dhigtay Ariel Sharon nin nacayb badan u qaba dadka Carabta ah. So that is non-trusted and probably hated by many of them because of his form. ugu yaraan wuxuu ahaa nin aan la aamini karin waxaana neceb dad badan sababo la xiriira dhinaca dhismaha guryaha sharci darrada ah. wuxuuna ahaa aabaha dhismayaasha sharci darrada ah. mar uu madax ka ahaa mucaaradka dalkaasi sanadkii 2000 ayaa Mr. Sharon waxa uu booqday Xaram al-Sharif ee magaalada Qudus ee Jerusalem. tallaabadaas oo dhalisay mudaharaadyo ay Falastiiniyiintu ugu yeedheen dagaalkii xoreynta labaad. Ariel Sharon wuxuu noqday ra'iisul wasaaraha Israel sanadkii 2001. dowladdiisu waxay burburisay kacdoonkii Falastiiniyiinta wuxuuna isla durbadiiba ku dhaqaaqay dhisidda xayndaabka hadda kala qaybiya Falastiin iyo Israel. inkastoo Mr. Sharon loo arkay inuu ahaa hogaamiye amar adka oo aan ka libiqsan difaacidda Israel haddana wuxuu ahaa nin go'aan adag ku dhaqaaqa si loo helo nabadda guud. sanadkii 2005 waxa uu ka soo saaray ciidamada Israel marinka Gaza wuxuu kaloo soo raray dadkii Yuhuud ahaa ee meeshaasi deganaa. הסדר עתידי ישראל לא תישאר בכל המקומות בהם Sharon isagoo ka hadlayay tallaabadaasi ayuu wuxuu sheegay in si loo helo kala go'naansho Israel iyo Falastiin ay muhiim tahay in dadka degan dhinaca kale laga soo raro. Mr. Sharon ayaa markii dambe ka tagay xisbiga Likud wuxuuna abuuray xisbiga cusub ee la magac baxay Kadima kaasoo isla markiiba ku dhaqaaqay in wada hadallo adkaa balse guulo soo hooyay uu la galo Falastiiniyiinta si loo helo dal Falastiiniyiintu ay leeyihiin oo gooni u taagan. sanadkii 2006 ayaa Mr. Sharon madaxa dhiig uga furmay kadibna waxa uu galay xaalad miir doorsoonida waxaana xilkii ra'iisul wasaarenimo lagu wareejiyay Ehud Olmert. aad baad mahadsantahay Cabdicaziz ayaanu soo jeedinay warbixintii uu ka soo diray magaalada Qudus wariyaha VOA Luis Ramirez. waxaa doontid sameey qofka doonta dil maalin ayaad dhimanaysaa ilaahayna wuu ka abaal marinayaa waxaa doontid ahaaw. taasina waxaad warbixintii VOA ay ka diyaarisay dhimashadii uu dhintay Ariel Sharon oo ahaa ra'iisul wasaarihii Israel.